aad ha ugu fakirin waxa aadan haysan si aadan u waayin waxa aad haysato. qaybta ugu wanaagsan nolosha waa markii qoyskaaga kuu fahmaan sida saaxiib oo kale, saaxiibadana kuu taageeraan sida qoyskaaga oo kale. kuwa xumaanta u saaxiibka ah waa sida dhimbilaha dhuxusha, midba midka kale ayuu gubaa. saaxiibada beenta ah waa sida hooska oo kale, had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirto. inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan, balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah. saaxiib waxaa ugu wanaagsan qofka alle ku xasuusiyaa mar walba, khayrkana kula jecel, marnabana aan dembi kuu horseedeen. kuwaas ayaa ah saaxiibada dhabta ah. saaxiibka dhabta ah wuxuu xaqiiqdii kuu yahay hantida nolosha. si daacadnimo ah ayay kuu saxaan, kuuna hagaan, kuuna taageeraan. wehelkoodana wuxuu ku xasuusiyaa in aadan marnaba keli ku ahayn dunidan. haddii aad isku daydo inaad qalbigaaga qof u hubayso, waa inaad u diyaargarowdaa inaad mar kasta samir badnaato. ma aha ceeb inaynu noqonno kuwo sabool ah, laakiin waxaa ceeb ah inaynu noqonno kuwo dib u dhacsan.